halwaa nabadda halna waa waxaan isleeyahay madaxweynaha maanta ku habboonta inaad tidhaa halna waa ciidamada qaranka halna waa Soomaaliland guud ahaan halla beeshan baan leeyahay halkan isugu timi aan kala horreysiiyay qaybta nabadda waxa ogeydeen inaanu 2 bilood oo wax dhiman socdaal ugu jeegno sidii Soomaaliland nabad iyo isafgarad wanaagsan loogu soo dabaali lahaa waxaanu kala kulannay hawl badan oo qof ama ummad doonaysa inay dadka wuxuu hagaagaan ku munaasaba inay dul qaataan waanu u dib jirnay waanu u dayacnay wax kasta waanu soo marnay ugu dambeyntii markii halkan aanu nimi waxaanu ummadda u sheegnay inaanu ka keegnay ninka sarkaalka ee General Caare iyo ciidankiisa nabadgelyo buuxda oo Soomaaliland iyo ummadoo dhammi ku degto waa muranla waa shakira markii aanu nidhi isaguna jawaabihii uu ka bixiyay wuxuu ka marxaati furay nabadda uu qaatiyo wuxuu nagula soo ballamay Soomaaliland oo dhan baa haysa iyaba waa nasiib darre waxaan hore u sheegnay dhinaca kale madaxweynuhu kow ka yahay dalka hogaaminaya in isaga markuu xajka ka yimaado la sugo maalinta uu yimaadana nabadi waa shay qaali ah jawaabta uu ka bixinaya ay noqoto mid mudakar oo madaxweynenimo waxaan hore u nidhi annagoo ka wow qabna arrintaa wixii ka xumaada waa wax madaxweyne xaqiisun ka xumaaday muranla maanta dhab noqota shalay waxa soo baxay nin ku hadlaya afka madaxweynaha waayo ciidan qaran waxa ugu sareeya taliyaha ciidanka ugu sareeya waa madaxweynuhu ogeyn taani ma hadli karo afkii madaxweynuhu ku hadlo madaxweynuhu intaanaan isaga iman nabadii aanu la sugaynay hawadu noo soo mariyay jawaabtii oo maxay noqotay isagoo madaxweynaha qofaan maxkamad la keenin inuu yiraahdo waa dil xukumo bulshada dhan oo maqashiyo bal qoodii xarim mas'uul darada ayaga waa mas'uuliyad daro waa qeyr mas'uulnimo markuu hogaamiyaha go'aan ka noqdana amarkiisa lama qaato waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland afka nuux taani ku hadlay waa afkii madaxweynuhu ku hadlay madaxweynaheena markuu sidaa u hadlo ee wixii loo igmaday uu ka baydo inana waynu ku diidnay war soo saamaa waynu diidnay mana aqbalayno wax la qaadan karana ma adu maxkamad ma tid madaxweynaha lagu igmaday ummadda isku haynteeda iyo isku ilaalinteeda iyo isku dhowrkeeda lagu igmaday kala irdheynteeda iyo kala kaxaynteeda markaad la timaado oo cakiskiintii lagu igmaday waanu ku diidnay kuma aqbalamayno kama aqbalin Soomaaliland waa lagu doortay wixii lagu doortay markaad ka baydhana lagu adeeci maayo waxaan leeyahay ciidanka qaranka waxa ciidan qaran u tiin ina bulshadiina iyo ciidda iyo qaranka Soomaaliland ay ilaalisaan haddii la idin yiraahdo beelaha reer Soomaaliland qaar ka mid ah baynu leeynana ha qaadanina amarka saas la idin amray hadalkii shalay waa la idin amro waxa la idin amray dagaal qabiile ha qaadanina diida waayo waxaad u diidaysaan mas'uuliyadda ummadiina idiga saaran ee bulshadiina iyo beelihiina idiga saaran ee kuwii ciidankiina ka cadhooday ee bari ka maalin idinkuna saas oo kale ayaa la idin oran doonaa haddaad maanta dagaal qaadaan ciidanka qarankow nin walba bari baa la oranayaa waa dambiile qaran oo waa dil ninkii qayrkii loo xiray oo soo qoyso war ciidanka qarankow dagaal Caare iyo beel Soomaaliland tay doonta haatay midna ha ku qaadina waa dila talinaynaa
gacmaha ka laabta waxa la idin amray diida dagaal in la sameeyo diida in dadka la burburiyo diida in dadkiina la laayo diida in dalkiina la burburiyo waxaan uga gudbayaa ciidamada Soomaaliland ka tirsanaa Soomaaliland waa bulshada sutumiyo beelaa warsangeli bay ka hadleen hadal kale u dhacayay inuu sool ku socdana wuxuu yiri kuwa kale hadhayna ha iska tagaan hadalka caynkaasa qof Somalilandera oo xuduudaha Somaliland aqoonsan oo ku raacsan ma jiraan lana waanu diidnay Somaliland oo dhanayna diida Somaliland waa qaran isu yimi qofna ma kala diri karo la madaxweyne la taani la cid kala diri karin bulshada reer Somaliland waxa inoo ballan inaynu isu keenno dhibaatada ka ilaalino dagaal sokeeye ka ilaalino dalka in la burburiyo ka ilaalino cidayna hogaamisay halkay u socdaan garan mayna ilmaade rayaalow iyo walaalayaalow waxaanu idin leenahay haddaad ummadda reer Somaliland tihiin warbii waaye dalkii waxa loo dhaqaajiyay meelaan majarihii loogu tala galay ahayn ee ummadan loo igmanaayo loo doortay hal la badbaadiyo dadkan hal la badbaadiyo dalkan runta loo sheego ninka madaxweynaha sheeganaya iyo wixii caga ku qaato wato runta loo sheego xukuumaddiisa iyo waxa isku daba socdaan runta loo sheego inaan dagaal halkan ka shaqeynin sokeeye bulshadana waxaan leeyahay gacmaha isu qabsada inaan dagaal sokeeye la gelin inaan reer inaga mid la weerarin inaan ciidankeena qaranka qayb ka mid la weerarin waxaan ku soo ururinayaa garxaajis beelweynta garxaajis wuxuu yidhaahdaa nin baan ugu jecelahay maanta berigii hore aan karaysan jiro wuxuu yidhi dalka uga baqan mayno inay cid kale burburiseen madaxweynaha maanta hogaaminaya looga baqanaya ninka aad baan u jecelahay waa nin raganimo wey run buu sheegaa garxaajis waxaan idin leeyahay waa la idin taargad galeeyay dagaal sokeeya lagu dhawaaqay waa laga bareeray wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin waxaan nahay waayeelkii garxaajis ee nabadgelyada ka wada jabhada caare iyo dawladda waxaan u leenahay nabadgelyada 900 oo kiiloomitir baan soo wadnay 7 degmaanu soo marinay degmo walba waxaan u soo sheegnay inaan nabadgelyo wadno walowna laha nabadgelyada ma leeyahay ka qaadalaya nabadgelyadii Hargeysaanu keenay Hargeysa markaanu marilaynay nabadgelyadii waa nala ka hor yimi waa maqlaysan xukuumaddu shalay waxay tiri waxaanu leenahay dalka nabadgelyo lagu dhisay sharcigiisu waa waayeelkii dhisay Somaliland kamid baanu ahayn waxa weeye haddii ay kala dirteen ummadda Somaliland waxaan leenahay anuna ogaada nabadgelyo xumada cidda wada inay xukuumadda tahay madaxweynaha dalka uu koow ka yahay waxaan islahayn ninba wixii xajkii mad kordhin baqdin waxaan islahayn madaxweynuhu markuu soo noqdo isagoo xajkii ka yimi oo dadka u dhibrilaya buu imanaya laakiin imika shaki weyn baa nagalay waxaan leenahay madaxweyne wax la nin hogaana ba maxay to dagaalkii ka xumaaday wax la yiri goormay kuugu daray wixii maalintii aan maxay waxay ugu daray markaan doqon la tashaday oo doqon ciil qaba la tashaday wax la doqon garan ciil qabku waa maxay wuxuu yiri wax la doqon nacas buu yiri wax la nacas garan ciil maxay to doqon nacasnimadu waa maxay wixii waa doqon ciil qaba waxaanu leenahay dad ciil qabaad la tashatay madaxweyne arrinkaana Somaliland waxa weeye waxaanu leenahay annagu nabadgelyaan wadnay nabadgelyo meel looga gudbaa ma jirto waxaan u sheegaynaa beelaha Somaliland nabadgelyadii waa aragtaan halka ay marayso wixii lagu hadlay waa arkayseen anuna waanu hakinay nabadgelyadii waxaanu leenahay wixii ka dhacay buuraha tabcana ee ay dawladdu ku fuftay anoo maxay tahay suldaankii aaga ana waxa weeye dhaawac badan baa la geystay
dad baa la burburiyey beeyooyin baa la laayey hantidii dadkii muguuraadka baa la burburiyey waxaana waxa weeye waa lagala xisaabtamaya wixii aynu oran jiray siyaad barre baa sameeyay baa lagu sameeyay dadka wixii aynu oran jiray siyaad barre baa lagu sameeyay ee diyaaradu dadka ku garaacay wax ka xun baa nuuxtaani dadka ku garaacay waxaanu leenahay dalkan wada hadal baa lagu soo doojiyay halka lagu keenay leynama ictiraafin sharcigan madaxweyne aad la ordaysid leynama ba ictiraafin sharcigu wuxuu iyo xuduudaha la soo xidhi karaa marka layna ictiraafo sharcigan uu shaqay karaa sharciga dalku waxa weeye waa waayeelkii Soomaaliland dhisay annaga sharci oo dalka waxaanu leenahay sharciga dalku waa wada hadal isku tanaasul saamaxaad waxa weeye waa hadii alla ku fahamsiiyo ciidamada qaranka waxaanu leenahay maxay to beelaha ka kooban qoryi beelaha haysta haday hawshu 3 casho de si adkaato dagaal la soo celiyo nin waliba waa garanaya guriga uu ka dhashay qorigiisa de ha iskala qabto waxa weeye dalkan hadii loogu tala galay in la burburiyo waxaan leenahay anagu ka daaya baan leenahay nabadda hal la qaataan leenahay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed marxaati ka noqoto beelaha darafyada waxaan leeyahay shalay jawaabta xun la siiyay Soomaaliland waa la wada dhistay dad Soomaaliland darabaatihiin dhaqaalaha dalka ka soo baxay waxba ku leedihiin oo lagu faanayay lalaha dhaqaalaha waxa weeye dhaqaalaha iyaga siinaa dalka wax ku leedihiin gobolada fadhidaan turwada ugu badan ee Soomaaliland wax lagu siiyaa ku jirta waxa weeye xaal baan idin ka siinaa arrinka lala khaldamay dalkana waynu wada leenahay dunidana waxa weeye qofku isaga iska taga laakiin dalku ma tago waynu wada dhisanay Soomaaliland la wada leeyahay inuu dhisanay waxaanu leenahay waynu tashalayna wasku imanaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan maanta shirkan sharaa'ida aan ku qabanayno ujeedadiisii ragii hore ayaa sheegay waxaan la qabaa ragii hore sidii ay u sheegeen arrimaha wixii shalay ta dhacay ee aynu maqalay ee wadanka ka fajiciyay ee dadka ka fajiciyay shalay ta dhacay lagu kala diray Soomaaliland sidii looga hadlay hore intii ka hadashay waa la qabaa waxaanu marka hore hortan doonayay inaan hambaliyo u diro qoladayadii kale ee labaad ee Cirigaabo gudideeda ahayd ee Cirigaabo ka hadashay shalayta sidii ay u hadleen inaan hambaliyo u diro waxa kale oo aan doonayay inaan ka hadlo 3 qodob mid weeyaan horta meesha la yiraahdo Cirigaabo saaka shalayta markii la kala diray dalka Cirigaabo meel bari ka xigto oo taariikhda Soomaaliland ay ka jirtaa ma jirto waa la kala diray dalka sidee loo kala diray ayuu kala maqan yahay halka ninkaas shalayto afka uu ku hadlay ma ahayn af isagu leeyahay waa afkii madaxweynaha waa hadal madaxtooyada ka soo baxay waxaan ognahay inuu yahay hadalkaas hadal madaxtooyada ka soo baxay waxaan ognahay oo kale in uu yahay hadalkaasi kii 94kii madaxweynaha dalku uu yiri aniga wax diri kara duca qaadan maayo waa kiisi sida ay u yiraahdeen ee dadku arkaayo haddaan anagu beeshanahay ama reer Soomaaliland wixii daneynaya Soomaaliland ay aanu nahay waxaanu leenahay waa kiisi waxay Soomaalidu tiraahdaa bakaylow haddaan ka barur kugu xumayn annaka dalloobiguma xuma sida aw tirahdeen baanu idin la qaadan heshiiskii aanu wadnay ee aanu Cirigaabo ka keenay ee aanu buurta 7 habeen ugu hooyanay ee aanu nabadgelyada keenay ee laga soo waramay waxa lagu bedelay waa arkaysan reer Soomaaliland sida loogu bedelay ayaanu anana ula bedelay waxa kale oo doonayay inaan u sheego ciidamada qaranka ciidamada waxaan leeyahay amar qaldan oo la bixinayo oo raga iska hadlaya ay bixinayaan inaydan qaadan baan idinkana idinku baraarujinaya oo idinka digaya waxaan leenahay maanta xaaladdu halkay taagan tahay reer Soomaaliland waxaanu leenahay waa aragtaan shalayta qoladeedii halka ka hadashay salaada ilaahay salaadu eedaan bay leedahay eedaanku waxa weeyaan macnihiisu salaadii waqtigeedu waa taagan aqiim baa ku xiga
waa u kaca iyana way eedaameen annana waa qiimaynaa aad baa u mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ku qabanaynaa shirka jiraayid oo ku saabsan arrimo aanu baryahanba wadnay oo annagu waxaanu ahayn guddigii garxashiyo odayaal mustambeeda waxaanu baryahanba ku jirnay arrintii ka dhacday gobolka Sanaag ee Caare waxaanu ahayn raggii halkan ka tegey waxaanu ahayn raggii buurta ugu tegey raggayga halkaa ka tegey danta ummadda ayaanu u tagnay cidna dirtay oo dawladda oo arrinkaa noo xil saartay oo aanu is aragnay ma jirin laakiin dameerkayaga iyo dadkayaga oo aanaan u baahnayn in dee mushkilada ka dhacdaanu halkaa u tagnay waxaana geeyey intaas bay ahayd Caare waa kulannay janankaas wuxuu ahaa janan ka cawday markii hore arrimo horta awalan halkaa arrintu inay gaadho oo halkaa Caare arrintiisu gaadho kow waxa ka ah madaxweynaha maalintii ugu horeysay isagoo aan Soomaaliland ka bixin arrinta ceelaf weyn dib uu ku arkay buu uga baxay ciidanka isagoo jooga meesha la yiraahdo Bohol ayaa Soomaaliland oo dhan la hadashay dawladda oo markaa wakiil ka ahaa Maxamed Kaahin waxa la yiri war arrinta kala reebinaya arrinta korneelka iyo arrinta aynu wadnay ceelaf weyn yaan la kala reebin iyaga diiday madaxweynaha soo diiday culimadii baa la hadashay madaxweyne ku xigeenadii dadkii yimid oo dhan baa la hadlay ergooyinkii baa la hadlay arrintaasi horta inay halkaa gaadho oo uu Puntland tago oo uu jabhad noqdo horta awalan waxa ka ah dawladda xukuumadda cidda xukunta oo ay laba nin ugu weynaayeen madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha way dhacday oo wuu baxay oo wuxuu tagay isagoo aan tala garxajis ku tagin oo cid la talinin wuxuu tagay meesha la yiraahdo Puntland isagoo haddana cid kale soo tashan wuu soo noqday oo dalkiisii ku soo noqday anagu haddaan odayaashanahay waxaan u arkaynay inay fursad wanaagsan oo ummadda u soo noqotay ninkii jabhadda noqday ee baxay dib uun keeni lahaa inuu wadankiisii ku soo noqdo fursad wanaagsan oo dalka iyo dadkaba u dana ayaanu anagu arkaynay halkan markii uu yimid labadii ciidan sar fadhiisteen waxaan la noqotay inaan fadhi jirin meesha waan tagnay adigu waanu wada hadalay jabhadda waxaanu ka soo qaadnay nabad inay ogolyihiin wada hadal ogolyihiin waxa dadkoodaas ugu taliyo inay raali ka yihiin inay dadkoodii la midoobaan inay raali ka yihiin waxaanu filaynay inay wax wanaagsan tahay anigu horta dawladda siyaad bare ka adkayd garan maayo jabhadii asana markay joogtay maalin walba odayaasha waa loo yeeri jiray waxa la oran jiray warar doona inamadiini warbal odayaal aan cidba dirin oo nabad keenay oo ilaa kii u sareeyay keenay anagu waxaanu filaynay in alxamdulillah la yiraahdo in wixii aanu wadnay waanu wixii dib ku noqon lahaa dalkan waanu ka saarnay wada hadalkayga wixii dib ku noqon lahaa ee culays ku noqon lahaa ee aan aqliga galeen waanu ka saarnay bismillaah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu alayhi wasallam waxaan saakaynu ku yeedhnay shirkaygan jiraayid uu ku saabsan yahay haddaan nahay beesha garxajis waanu ka baxnay wada hadalladii aanu ka dhex wadnay xukuumadda iyo jabhadda Janaal Caare dhammaan wada hadallada waanu joojinay taas waanu caddaynaa saaka waxaan kaloo la hadlaynaa beelaha darafyada iyo Soomaaliland shalay ninkii xukuumadda u hadlay afayeenka xukuumadda shalay ahaa oo kala diray Soomaaliland ma aha meel qof kala diri karo nagu ma aqoonsanin saacada laga bilaabo taani uma aqoonsanin taliya ciidan nooma aha beelaha Soomaaliland waxaan leenahay ma aha meel qof intuu soo fadhiisto oo yiraahdo cidda looma baahna ciddana waa loo baahay maaha dadka reer Soomaaliland waxbay wada dhisteen
cid waliba talay ku leeday dalkan beelaha waxaanu leenahay darafyada ee shalay gaarka ula hadlayay ee ulaha ciidamadooda looma baahnayo deegaamadooda dalkay leeyiin adiga qaar waxba laga weydiinayo maaha iyaga waxa leenahay war waynu soo marnaa tala qaran baynu ka yeelanaa waxan cidii reer Soomaaliland ee xumaanta diidan haddaan nahay beesha garxajis waynu soo marnaa baran baanu tageynaa taleex baanu tageynaa laascaanood baanu tageynaa buuhood baanu tageynaa awdal baanu tageynaa salal baanu tageynaa haddaan nahay beesha garxajis cid wal oo tabasho qabta oo xumaanta dalka ka socota aragta waa la hadlanaa oo tashanayna qarannimada dalkan iyo danaha dalkan iyo masiirka dalkan ka wada hadlayna taasina waa baaq aanu beelaa u jeedinayno waxa weeye waxa yimi carre xukuumaddu laba jeer bay gardarro ku weerartay mar dhoob bay gardarro ku weerartay waa looga isagoo halkaas iska maraya baa la weeraray marna buurta tabca lagu weeraray anagoo joogna Cergaabo oo saa wada eegayna labadii jeer baa anagoo turaala wadna gacmaana waan ka laabanay dhan waan ka qarsanay afayeenka xukuumadda shalay tuu hadlayay isagoo wuxuu ka hadlayaa waa dambiila waa la qisaasayaa mar dambe hadii xukuumaddu soo hadal qaado wixii ka dhacay iyada ka mas'uula saacada laga bilaabana cid barbar taageera difaacaysa waa anaga beelaa Soomaaliland mar labaad waxaan ku celinayaa waynu siibanaa tala qaran baynu waxaan ka yeelanaa dalka ka socda salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا مولانا محمد مركورة محد الله باله محيا هيدي شركة شرائد يعني هالكن ما أنت يدون كوكا بني قلدين الصحافة ده مناسبة دي أنتي لو قلت لك على عائلة هيد runtii waxay yiri ragii hore salaadiintii iyo gudidii odayaashii uqaashi baa yiri anigu suldaan guud ahaan waa gudoon waxaan imka raaciyaa hadal waliba madal buu leeyahay wuxuu baan leeyahay horta marka u horeysa kelmadan oranaya waxa weeye wixii maanta ka dambeeya talad dambe iyo go'aanada dambe garxajis isaga dib isugu noqon doona maxay hayday oo hawlihiisa wixii khuseeya maxay hayday ka tashan doona halka xaaladu maanta maraysa loogu dhawaaqay marka waxaan leeyahay horta hadalkii waayeelkii wax garad ku yiri hadaan ahay Sudaankii guud waa gudoomiyay waa fikir aanu qabno waa halka ay maanta taagan tahay inta waxaan raacinayaa waxa weeye Somaliland anoon kala saarin si wacan bay odayaashu uga hadleen runtii beelaha gaarka si gaarka hadalku ugu dhacayay laakiin waxaan leeyahay guud ahaanba marka la isku soo celiyo waxaan ugu baaqayaa Somaliland xaqoriga xabadii uun baan ka bixin halka maanta maxay dhawaaq halka ka baxay in badanna waan baaqayno waa hadleen buurta gacan libaax baanu ka hadalay dul badan oo kale aanu ka hadalay warnabada dalka hal daba qabatay maanta dalkaas meel xun buu ku socdaa baanu mar walba ku baaqayna wardal iyo dawlad dal